وعبد الرحمن محمد بوري وأمد علنا مدشة أيام هريتج ديارنا وإسرائيلنا طبعا وحي شفتي إنه كسب سنة هاي سبورت كارهان بدعت الصومالي ويني أمس الجوي حسوس بوحدة وأكشف إن كرتو تفاصيل شاب وحي أداوتي حسوس إن قرون لوجي عيار العيار مركا tan hore oo intii gacanta la qabtay isbartiibo leeyay aad uma xasuusto in la ciyaarayo waan ogahay anaga laakiin garoon aan galo oo yaana anu goosan ticket laakiin intii la gooyay aan ciyaar daawado on si fiican u xasuusto waa garoonka Stade Muqdisho wuxuu leeyahay كور استاديو كوني أما ذاك أيوة عنا كونس واتري هو اللي لكن كان تشاينيز الصومالي عيار عين وانغاري أنا ما هنا يا فصل بس الحادنا ها ودوسي بوسيل كاس واتدوي كلابي في مركز الجسيس بكتير أوكي تاريخ بسوار فيها يدرامة المقدشو شركة عميدة شيء وصلنا عندنا وإن بدون الغب اللي جران في اللي ماشي جامعة ومدة أكاد اسمه طهورة وشبابه كدينا سبورتي هذا حمر جد وكيلي هذا وعيار جري كدينا كدي جولن بكذا تليانه لسان سبورتي هذا كوني أيوب بحيانه دماغي أهبا كدي جولن بكذا تليانه ciyaar rasmi wax lagu dheelay marka koobi ayaa u horeeyay kadib todobaadkii waxaa la dhisay isbartidada Stade Muqdisho waxyaaba aniga xasuusto waxaa kamid ah in Stade Muqdisho lagu ciyaari jiray xilligaas ciyaaraha waaweyn finalada ciyaaraha gobolada ciyaaraha munaasabadaha ciyaaraha xulka qaranku uu la ciyaarayo ama naadiyadu ay la ciyaarayaan naadiyo kala dibadda ah لكن أنت بدل هريالك واحد يقول يجري استاديو كوني سبح يسكريتين كينا إن شاء الله أي استاديو كوني كربون كماشي لهذا ووقع ولا اللعبة وهي أفريزين كده بيتوقع العيارة واحد يسوي الوريجي استاديو مقدشو يقول عند رمضان وحي عيان وبدأ عكتا استاديو كوني إيو استاديو مقدشو دقموينك والله أنت بدل حافظها الوعي رجلي معناه وحي حساب سنين سيريسي مركا سبقتيبه أنا أنت حسوسته وسيري بي أو قبلها هي سيري أو طبعا كنادية أنت صحيح حماسة هو بنات أو طبعا كنادي هكذا تاجر بنادى لكن ما نشوف تاجر يلا خيارها قبلها وحمرة يعني لو مرحلة هو إسرائيل قبلها كده يجري مثلا أفرتي قبلها مشانتي قبل بمالك وعياري زين لو قوي قلبك وحلاقي يعني مرتجي للصوت ولاري وباري أو مركي دمبو وصل لسناجي لسنين مثلا لالكعي وكلا أما بلوي نوكرين مرتجي للصوت جديدي مثلا بيرم وكرين مرتجي للصوت تركي أو تجدي باص جبل يجري كوها كسر بحاس الرقص أي حمر عيار يجري عيارها قبلها تغيرنا هذا أرصاد وحنقول بالله أنا نتجين درانك أنا راضي أكل يسوي كذا ورسالنا تاريخ ولا وحي تاي كعان كقول ورسال مجري مهاجرين لبتين كوح بوليسكا وكوح حوك كعان تاسو دري في دواتي كوري ورسال وبحش مركا أمان سبرتين تجين أيام نجسين جري عيارتين اللي يشوفون كذا مركا دمنا قاعد كوت أنجرام قاري قارنا أيوة معلمينا أيام بحث وأنا واحد قلبي جيس كلا حديرة أنا ورسال جعلاوي markii dambana aan ku biiray taageerayaashooda waaweyn oo diiwaan gashan ayadana waa arrin la xiriirta awoodda jaabka dadka awoodda jaabka markaan ku leeyahay tigidka ama bilyetigu isku qiimo maaha oo isbartidooda haduna ha noqoto istaadiyo koonis ama istaadiyo
muqdisho marka dhalinyaradu inta badan maadaama ay jeebhaan iska liitaan oo arday badan yihiin waxay geli jireen qaybta qoraxda oo dhihi jiray kataanga oo dhigatii jaban lagu geli jiray way dhici jirtay marka labada kaambiyo inta u dhaxaysa in qofka taanga galay uu soo gooyo oo dhinaca hooska oo yimaado haddana in la qabtana waa macquul oo booliis shabaqlihii marka waxaa sugaya ninkii cala soo dhigi jiray in lagu rido diinka marka la joogo ereyska simbalaa la isticmaali jiray oo haddaba in la isticmaalaa malaynaa oo adigaa tahay oo aan ahayn hayb kale oo aniga jiingaan ahay aniga horseedaan ahay aniga geedidkaan ahay otobaarkaan ahay fiyaadaan ahay saasay ahayd qofka soomaaligaana xamaasadiisa iyo taageeradiisa ma qarsanto waxay jir wuxuu sheegaa taageerayaasha aniga aan garoomada ku gaaray horta ninka ugu caansan xasan real dhihi jiray odaya kan badan aan bartay oo maamulo ka ahaa shabean banaadir oo taageeri jiray nabi mishibi dhihi jiray ama muqdisho markii loo baxshay halku dhigo laacana arday tiro oo kiyaala gasho dhihi jiray marka garsooro wax qalad uu ka dareemo inuu nabigiisa ka yaxanayo koorsadaan taageerayaasha ugu weyn Cabdallah kamid ah ninjiis oo ku socda Niger ana suuriin saali kartaan away maana horsada ugu qonaa jirtay anigu dhiga kamid ah waxaa kale isbaraasha taageeri jiray madaxii ujeey taageeri jiray waa banaan taageerayaasha macallimiin aan ku gaaray ana ciyaartooy oo ku gaarina jira walaal yaaba koorsadaan in caadifadii jirto macallin Ibrahim Suudaan Allah u naxariisto معلمين كلهم وين أجري معلم عمر عجاسي معلم باسكوالا معلم منيرو معلم توكو مرة بنتي بشان منيرو بنتي الله محرسه معلم بوديستي لبني بوديستي واصل لشين محمد الشيخ محمد بوديستي معلمين كان كعصوص كاسي هاي معلم قرارة هاي ودمانتو يعني كبي هو بنتي الله محرسه وحياة إسبدلوا حاكمية مثلا دولة الصومالية معلم تيم وطأ هي أصلا كان هنجري مركات معلم فرنك مثلا معلم أحمد نيجرو وجاي وطأ أما فيات هي نغنى معلم فرنك كسيفر معلم إبراهيم سوداني وصل وطأ هي نغنى معلم فرنك معلم مثل إذا عمر عندي نغنى معلم فرنك أصلا تيم وطأ معلم بوديستي أو بطلق معلم أنا نقول معلم فرنك مركا ممنوع ما هي المعلم كأصله نادي وطا إنه معلم غير الموضوع مركا وريال كاس لديرة يا أما جنداود لولا قبل ديرو وريال كا يكوك جنداود أما كوك وريال كا لو سوق الشاعر تودا قرنكا مثليسا يكون بناء الشاعر كدي بطوبك haddana lagu kala reebaa ilaa inta ugu dambaysa finalka la gaarayo ciyaartooyda qaranka matalaya hadday noqon lahaayeen dad tutulaar ah iyo hadday noqon lahaayeen dadkayda intaba marka taariikhda waxaan ku maqlay in laba nin oo kale ah oo Soomaali ah ay yihiin labada ciyaartooy oo gobol ciyaaray qaran loo magacaabay yani ciyaaray gobolka deegaan qaranka deegaan labadii naadi oo kala safteen qarankii qaateen وحسن عفيف يحيى الله يرحمه ونور ياي قدر نكون ان شاء الله ديك كلنا وحاول يجري احمد صالح حوت بن شاكر اصلا سعودي وكمولي لبدي تيم كلا هذين من شيبي iyo Orsett ciyaartooyda kala waxay mari jireen heerar kala maro degmo Serie A Serie B oo gobol Serie A kadib qaran geli jireen ciyaaraha adduunka waxaan ku bilownay raadiyo aan ka dhigaysano dalkeenu TV wuxuu yeeshay Africity haddana dalkeenu TV yaalo ciyaaruhu ma ahayn live ciyaartii oo dhacday oo natiijadeedii raadiyaha laga sii sheegay ayaa dib loo daawanayay marka xiise gooni ayay leedahay مثلا ciyaaraha la socda anigoo adduunka 82 awgeys raadiyahan kala socday وقرن كلامي وقولي إسباني لكن استيقظ لكن في التلفزيون يعني لا فهم سقاطين كنا هو في دولة بداية سايدنا لا تيجي لكن ساعة كده هي السودان هاي أوكي وأسلتي أقول شيء وقت هو يوم تصحى يعني كده يسنا هاي وأنا جعلها
waxyaaba cajiibka waxaa ka mid ah naadiga mataanaha la ah yuba ee xamar ka dhisan wuxuu ahaa naadi aan counter isku nahay waa naadiga fiyaad la dhihi jiray mar dambena wagad loo baxshay xitaa fanaanadooda ku ciyaari jiray ma taageeri jirin aniga horsadaan taageeri jiray yuba naadigaan jecel oo ahaa oo raadiga aan ka bilaabay kadibna aan daawaday cajalado horyaalka amaba joornaalada oo lagu soo saaro isboortiga ayaan daawan jirnay oo fiirsan jirnay ciyaartoy waaweyn oo rag waaweyn oo legendis raggii aan la bilaabo qaarna ay dhinteen qaarna ay nool yihiin sida Dini Zoff oo kale oo xasuustaa Antonio Caprini Gitano Schreyer Marco Tervilli Paolo Rossi oo dhintay raggaasay ahaayeen Michel Platini oo nool Onyek oo nool raggaasay ahaayeen daawashada mid ugu horreysay oo xilliga ay dhacayeen ciyaaraha 86 waaye 82 labadii raadiyaan kala soconay ama cajaladaan ka fiirsanay 82 koobkii Mexico lagu qabtay waa wataan kuu sheegay oo ciyaarta soo daahdo ayuu dhacday kadib laakiin waa daawaday ma dhihi karo waa daawaday laakiin ciyaar badan oo kamid waa daawaday oo Argentina ay qaaday koobka I think West Germany ay ka qaaday way jiraan raggii haddaan kuu sheegayay oo qaarkood garoomada wax yaraan kusoo gaaray sida Ibrahim Suudaan oo kale laakiin macalinka ugu badan aniga aan arkay macalimiinta arkay waa xakim macalin Kabay Maxamed Yusuf macalin Ahmed Neger macalin Budiste macalin Garaare dhammaantood waxay ahaayeen rag lagu dayo karo tusaale fiican waa isboortiga ciyaartoyda qaar si shakhsi aan saaxiib u noqonayba sida kabtankii ugu dambeeyay qaranka kabtan Ibrahim Shash Baranjarno ku nool ciyaartoy badan oo Soomaaliya jira Abdul Turki saabanahay dibadda macalinkaas dhigi karo waa macalin fiican waa Marshall League inta la yidhaahdo macalinkii qaranka Talyaaniga iyo kooxdii Juventus wallaahi gudaha markaan ka hadlo waxna waa tankuudu waa sheeko waxna waa shahayd midda la isku raacay waa Siciid Ducaale inuu ahaa laacibka ugu fiican Soomaaliya nasiib daro aniga Siciid Ducaale garoomada kuma soo gaarin mar uu ka soo noqday Masar oo iyo ciyaar dheelay horseed isbartiyada weyn weliba Malawi dheelay halkaas ayaan ka daawaday si laaf laakiin ciyaartoydii aniga aan arkay dadka ugu fiican waxaa ka mid ahaa Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Coti waxaa ka mid ahaa Khaliif Shire Muuse Afriko waxaa ka mid ahaa Nuur Cabdi Xaaji Nuur Shaarkey Allah naxariisto maxamed Ismaaciil iyo Cafiif waa arkay laakiin ma badnayn aragtida raggaasay ahaayeen Yuusuf Maxamed Maxamuud Shaqaaq Dr. Shaqaaq raggaasay Maxamed Xaaji Nuuri Allah naxariisto aad iyo aad gudaha waxaa jirtay ciyaar aad u xamaasad badnayd oo Saadi Muqdisho ka dhacday oo qaranka Soomaaliya uu la ciyaaray qaranka Kenya oo hal gool iyo aan uga adkaanay oo noo dhaliyay goolka من هذا حنوصل الله ونعافيه لهذا عبد الله محمود سرحان إنه هذا يبرك ما تعرفس واحد سوستا محمد هذا قرن معنا لقرن كذي بيكاسوها دربيجا إيه عيارة دربيجا ليه سيدي جاي أدنى سواء كونترا جاي وأكبر يفهم نفط لكن ما كان يقبل يعني ولا دري ما يحنون وجهه هذا ما هو ضمنته وهو بنون ولسوء أمرينا أخلاق الشخص جا ويني وعيرتوه iyo ilaalinta badqabka jirkooda iyo maskaxdooda intaba inaan dooriyaal inay ismacneen inay ahaayeen dad maxaa la yidhahdaa aada uga taxadara jirkooda dhismihiisa iyo caafimaadkooda xiriirka u dhexeeyana inuu ahaa xiriir aada u fiican oo qaybtay lahaayeen inay tahay isboorti ama ciyaartooy waa jiraan ciyaaro badan jiro heerka banaadiga iyo heer qaran ama guda iyo dibadba مثلا tiimkayga ma ahayn ciyaar waxaa jirtay milishii biyay dheereen iyo madacad oo dadka isboortiga oo kale yidaalayda ama iga weyn ay aad u xasuustaan oo sharobadi gool ay dhahaan marka ciyaartaas oo keentay in la isku celcelsho labada tiim dhowr mar
ciyaaraha waxay si badan ahayd xiisaha ciyaarta waxaa ka darnaa jawiga garoonka si ay ugu soo buuxo siimanka sideedda oo nalka xataa la saaran yahay tii qarankan kuu sheegaya hadda inuu goolka dhalinayo ama kuwa dibadaha ciyaaro oo naadiga Juventus ama qaramada waa jiraan. Okay, hayaan horta ka xumahay barnaamijka hayaan siday tahay ulama socdo laakiin inta aan kala socdo waa bogaadinayaa waxaan u arkaa inay tahay madal ribxi aan laga raadin oo bulshada wax weyn ugu fadhida oo aad iyo jeer ku mashquulsan ama ku foogan wax dadkan wax taraya hadday noqon lahayd dhaqankooda hadday noqon lahayd maxaa la yidhahdaa akhlaaqda dadka hadday noqon lahayd soo noolaynta turaadkii hore hadday noqon lahayd xusuusinta dadkii la xasuusiyey in magaaladan ay meel fiican ay ahaan jirtay dadkuna dad fiican ahaayeen